kusoo dhawaada casharkeena imtixaanaha ahaa waxaynu ku jirnay chapterkii matters ayaynu ku jirnay gaar ahaan qaybta determinantga ayaynu ku jirnay maanta waxaynu example ka bixinaynaa calaamadii afraad casharka kan ka horeeyay waxaynu ku sharaxnay conceptiga ay leedahay calaamadda afraad ayaynu ku sharaxnay ayadoo faahfaahsan marka hadda waxaynu example ka bixinaynaa calaamadda afraad waxaana la siiyay delta wixii la mid ah inta ayaa lagu yiraahday qiimaha ayaa lagu siiyay markii lagu dhufto dhaltadan 6 lagu dhufto oo ah first column-keeda markii 6 lagu dhufto waxaan raadinaynaa determinant-ka cusub ee soo baxaya casharka hore haddaynu xawaa yar is xasuusino wuxuu oranayay sida tan delta 1 waxay la mid tahay delta 1 waxay la mid tahay ay oranayay constantiga la siiyay oo 6 ah oo lagu dhuftay delta origin-ka oo kan ah marka waxaynu oranaynaa solution ayaynu oranaynaa si fudud ayaynu u shaqeynaa soo koobino SOL ayaa soo gaabiyay SOL ayaa solution soo gaabiyay waayo waqti ma jiro marka waxaan oranayaa given-ka la siiyay ayaa qoranayaa horta waxa raadinaya waa delta 1 determinant-geeda waxa raadinaya delta 1 determinant-geeda ayaa raadinaya marka waxaan oranayaa det determinant ayaa soo gaabiyay oranayaa delta 1 ayaa raadinaya second given-ka la siiyay kale ayaa qoranayaa k ayaa oranayaa k waxay la mid tahay 6 ayaa la siiyay k constantiga way waa constantiga haddana maxaan oranayaa delta maxaa la siiyay delta origin-ka la siiyay given-ka maxaa waaye waa 2 5 8 3 7 1 2 eber 2 halkan ka wada 2 ayaan ka wada qoranayaa xiranaya marka inta marka la siiyo waxaan rabaa determinant-ga delta 1 saa u soo saaro delta 1 determinant-ga saa u soo saaro maxaa sameynayaa waxaan soo saarayaa marka hore delta origin-kan la siiyay determinant-ga ayaan soo saarayaa delta origin-kan la siiyay determinant-ga ayaan soo saarayaa marka maxaa sameynayaa waxaan oranayaa de ayaan soo gaabinayaa det ayaan waxaan soo gaabinayaa delta origin-ka waxay la mid tahay maxaan soo qaadanayaa 2 ayaan soo qaadanayaa determinant-ga si loo raadiyo casharada hore ayaan si fiican ugu soo sharxay marka waxaan sameynayaa 2 ayaan soo qaadanayaa labadan row ahaan waxay ka tirsan tahay line-kan column ahaan waxay ka tirsan tahay line-kan ayay ka tirsan tahay column ahaan marka maxaa soo qaadanaya 7 1 eber 2 ayaan soo qaadanayaa sida ayaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa 7 1 eber 2 ayaan soo qaadanayaa ku xiriya practice ayaan ku xiriya maxaan oranayaa halkan minus-kaas ayuu ku yimid minus-kan wuxuu ku yimaadaa ilaa waxaan soo qaadanaynaa 5 soo ilaa godkan waan soo qaadanay waa 2 hadda waxaynu marinaa 5 godka labaad ayaan marinaa godka labaad calaamadu qaadanayo maxaa lagu gartaa waxaa lagu garanayaa muxuu ka tirsan yahay line ku tirsan yahay godka labaad maxaa weeye 5 wuxuu ka tirsan yahay row 1 iyo column 2 marka waxaan oranayaa minus 1 marka isku daro 1 iyo 2 maxaa weeye 1 plus 2 waa minus 1 3 maxaa soo baxaya minus 1 ayaa soo baxaya halka minus 6 ku noqotay marka minus 1 kan ayaa ku dhufanaysaa 5 ayaa ku dhufanaysaa waxaan qoranayaa halkan minus 5 ayaa qoranayaa minus 5 kan maxay xiriir la leedahay row ahaan line-ka ka tirsan tahay line-ka ay column ahaan ka tirsan tahay row ahaan waxay ka tirsan tahay line-ka marka 3 iyo 1 iyo 2 iyo 2 ayaan qaadanayaa saas ayaan sameynayaa waxaan oranayaa 3 1 2 maxaan sameynayaa second plus ayaan sameynayaa plus-kan wuxuu ku yimaaday column 3 ayuu ku yimaaday column 3 ga markii 1 lagu daray 3 power-kan haddaa 1 plus 3 oo minus 1 ah hoos halkan 3 ayaa ka wadaa
markaas ku dari labada maxay noqonaysaa minus 1 plus 4 equal maxaa soo baxaya positive 1 ayaa soo baxaysa markii minus 1 afar jeer isku dhufto positive 1 ka ayaa ku dhufanaya 8 ayaa ku dhufanaysaa halkaan maxaa qoranaya 8 ayaan qoranaya waxaan sameynayaa markaas row ahaan ku tirsan yahay line-kan 8 column ahaan ku tirsan yahay line-kan waxaan soo saartay minuska ayaan soo saartay waa 3 iyo 7 iyo 2 every ayaa la soo baxay marka waxaan sameynayaa sida tan ayaa oranayaa 3 7 2 every kas saa ayaa sameynaya haddii kale aad rabtid si yar oo fudud aad sameyn kadib waxa weeyaan si aad ku garatid hadda ka wasqaad pluskan minuskan iyo pluskan si aad ku garan kadib line-ka koowaad markaa labada raadinaysid godka labaad waxaa oranaysaa halkan waa plus haddana kan kale minus plus minus saas ayaa iskugu xijin karaa waa si yar concept iska yar fudud wey laakiin sida la yaqaan oo ku imaatay sababta nidaamka ay ku imaatay cashar kale ayaan si fiican ugu sharaxay marka waxaan sameynayaa labo waxaan oranayaa equal waxay la mid tahay inta ay la mid tahay waxaan soo qaadanayaa labo ayaan soo qaadanaya inta ayaan ka shaqeynayaa labo ayaan soo qaadanayaa labo markaan soo qaato maxaan sameynayaa 7 waxaan ku dhufanayaa labo 7 ayaan labo ku dhufanayaa labadan ayaan soo dhufanayaa waxay noqotay 4 iyo 10 eber waxa ku dhufataa hal minus eber maxaa soo baxaya 4 iyo 10 ayaa soo baxaya marka maxaan furanayaa bracket ayaan furanayaa maxaan qoranayaa 4 iyo 10 ayaan qoranayaa 4 iyo 10 ayaa ku xiriya bracket ku xiriya marka okay sidaas ayaan sameynayaa 4 iyo 10 ayaa ku xiriya maxaan soo qaadanayaa minuska ayaan soo qaadanayaa minuskii ayaan soo qaadanayaa 5 ayaan soo qaadanayaa haddana 5 ayaan soo qaadanayaa maxaan sameynayaa 3 sidaan ayaan ku hormariyaa markasta saan ayaa sameynaysaa 3 ayaa laba ku dhufanaysaa marka 3 ayaa isku dhufanaysaa 3 marka laba ku dhufatay waa 6 laba hal ku dhufo waana ka jaraysaa laba hal ku dhufo waa 2 maxaa soo baxaya 4 ayaa soo baxaya marka waxaan sameynayaa bracket ayaan furayaa maxaa isoo baxay 4 ayaa isoo baxay pluska ayaan soo qaadanayaa plus 8 ayaan qaadanayaa maxaan sameynayaa sidoo kale maxaa isku dhufanayaa marka 3 ayaa eber ku dhufanayaa waa eber 3 ayaa laba ku dhufanayaa waa minus 4 iyo 10 yani 3 marka laba marka lagu dhufto 7 maxaa weeye waa minus 4 iyo 10 maxaa sameynayaa minuska uu ka jarmay marka tirada markasta oo la kala jarayo tirada weyn ayaa minus qaadanaysa yani eber marka ka jaray 4 iyo 10 waxaa la dhahayaa minus 4 iyo 10 ayaa ku soo numberka weyn ayaa calaamad qaadanaya hadda 8 laba ka jarid example ahaan 8 hadda laba ka jarid maxaa soo baxaya 6 ayaa soo baxaya 6 maxay positive ku noqotay numberka weyn ayaa plus wata saa waa oran karaa laakiin si kale hadda dhanka kale ka fiirsi dhanka number line-ka hadda eber hal xagga waxa ka xiga maxaa weeye minus 1 minus 2 halkan labo waxa la ka xiga waa positive halka waxa ka xiga waa minus 1 يعني marka la fiirinayo dhankaasi physics-ka iyo temperature-ka eber markii tahay minus 1 minus 2 يعني eber ayaa weyn minus 1 ka ayaa yar minus 2 ayaa yar sida kale laakiin marka hadda eber ay ka jiray 4 iyo 10 waxa soo baxaya minus 14 ayaa soo baxaya marka waxaan qoranayaa 4 iyo 10 ayaan qoranayaa bracket ayaan furtay 4 iyo 10 oo ku xiriyaa bracket ayaan ku xiriyaa marka labadan ayaan isku dhufanayaa laba waxaan ku dhufanayaa 4 iyo 10 maxaa isoo baxaya equal aan qorto haddaan qorto 4 iyo 10 marka laba lagu dhufto 28 oo laga jaray minus 20 oo laga jaray plus way halkan sorry plus intaan isku dhufo waa 1 1 2 waa 1 1 2 no ma ahan wax yar halkan waa minus ayay wadatay 4 10 kan maxay wadatay minus waa ilaaway minus ayay wadatay
marka plus haddii minus lagu dhufto maxaa soo baxa plus haddaa minus ku dhufatid plus haddaa minus ku dhufatid waxaa soo baxa minus ayaa soo baxay haddaa plus plus ku dhufatina waxaa soo baxa plus ayaa soo baxa haddaa minus ku dhufatid minus maxaa soo baxa plus ayaa soo baxa marka 8 haddii lagu dhufto minus 14 maxaa soo baxaya ila pluska minus isku dhacaya minus ayaa soo baxaya minus ayaa soo baxaya waxa soo baxaya minus ayaa soo baxaya marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 1 1 labo ayay noqonaysaa labo 1 1 labo ayay noqonaysaa marka maxay la simi tahay intaan labada ayaa minus 20 iyo minus 112 ayaa isku daraysaa kabacdina waxaa ka jaraysaa 28 ayaa ka jaraysaa halka waxaan ka fahmi karnaa numberkan labadan 28 iyo minus 20 iyo 1128 markii la soo kala jiro waxaa soo baxaya number minus ayaa soo baxaya waxaana soo baxaya minus 104 ayaa soo baxaya 104 ayaa soo baxaya intaa maxaa waaye waa determinant intaa maxay la mid tahay intaa waxay noo mid tahay waa determinant of delta origin det waxay la mid tahay minus 104 intaas ayay la mid tahay markaad maxaa soo saartay determinant of det marka formula la siiyay maxay ahayd nidaamkii hore marka hadaan sharxay de1 waxay noola mid ahayd soo ma ahayn constant oo lagu dhuftay d origin marka aan ka dhigay determinant maxaa oranayaa marka ka dhigay determinant waxa oranayaa det ayaa soo gaaminayaa oo delta 1 equal waxay la mid tahay constant oo lagu dhuftay det oo delta 1 oo delta origin marka maxaa haysta maanta delta origin maxay la mid tahay 1 minus 104 saan u helo delta 1 determinant-iga saan u helo determinant of delta 1 saan u helo determinant-iga leedahay delta 1 saan u helo marka waxaan oranayaa waxaan soo qaadanayaa det waxay la mid tahay oo delta 1 waxay la mid tahay de1 waxay la mid tahay waa oranayaa equal constant okay ah soo qaadanayaa constant okay maxaa nisiyay k constant k waxaan u qaadanay 6 ayaan u qaadanay halka ayaa gifka ku qornay marka waxaan sameynayaa k ayaa 6 soo qaadanayaa det determinant oo delta origin maxaa soo saartay minus 104 ayaan soo saartay 104 minus 104 maxaan ku xiriyaa bracket ayaan ku xiriyaa marka intaa isku dhufto maxaa soo baxaya intaa marka isku dhufto waxaa soo baxaya waxaa soo baxaya 2 6 oo minus waxaa soo baxay 624 ayaa soo baxay oo minus ayaa soo baxay marka intaas maxay noqotay determinant of det1 and determinant-iga hadda maxaa helnay delta 1 determinant-iga maxaa helnay intaas ayaa helnay waxa kale oo aan sameyn karnaa determinant-iga si kale aan hadda u raadin karnaa oo sidii caadiga ahayd waxa sameyn karnaa kan ayaa soo qaadanaysaa waxa ku dhufanaysaa first column-ka dadka ayaa first column ku dhufanaysaa haddaynu halkan ku sameyno yani hadda asalka waa helnay laakiin qaab kale ayaa sameyn karnaa waxa soo qaadanaysaa determinant delta ayaa soo qaadanaysaa delta origin maxaa la siiyay waxay la mid ahayd soo maahan waxaan la siiyay waa 258
8 3 7 1 2 eber 2 intaasna la siiyay baa u malaynaya soomaaliya gifinka marka delta marka intaan lagu siiyay waxa ku dhufanaysaa waxa lagu multiply first column 6 ku dhufo first column keeda first column waxa weeye waa line kan first column ila waa column 1 soma column 1 line kan first column ke waa column 1 soma column 1 ayaa ku dhufanaysaa 6 ayaa ku dhufanaysaa column 1 6daas waxa weeye waa constantiga marka maxaa ku dhufanaa column 1 column 1 maxaa ku dhufanayaa column 1 oo c1 c1 maxaa ku dhufanayaa 6 oo ah constantiga ayaa ku dhufanaya marka maxay la mid tahay baa oranayaa 6 marka inta ku dhufto maxaa weeye ama si kala taa qoro si yar fudud 6 oo lagu dhuftay maxaa oranayaa 2 6 oo lagu dhuftay maxaa ku dhufanayaa ila first column ku dhufanaysa 3 6 oo lagu dhuftay 6 oo lagu dhuftay maxaa ku dhufanayaa 2 halkan 2 ayaan ka wadaa 2 ayaan ku dhufanaya inta kale maxaa soo qaadanaya sidoo ayaan soo qaadanaya 8 1 2 ayaan soo qaadanaya marka inta isku dhufto maxay noqonaysaa halkan waa 12 waa 18 waa 12 halkan 18 ayaan ka wadaa 18 ayaan ka wadaa halkan 12 ayaan ka wadaa marka maxay noqonaysaa 5 7 eber 8 1 2 maxaa sameynaysaa hadhow marka hadda halkan waxaa ii soo baxay kan iyo kan isku mid maaha intaan waxa u qaadanayaa delta 1 ayaa u qaadanaya delta 1 sababta 6 ayaa isbedel ku sameysay 6 ayaa ku dhacday marka waxaan delta 1 maxay la mid tahay 12 18 12 5 7 eber 8 1 2 intaas ayay la mid tahay delta 1 waxay la mid tahay inta delta 1 determinantiga hadaa soo raadisid determinantiga delta 1 hadaa soo raadisid maxaa ku soo baxaya determinant of delta 1 determinant dt baan soo gaabiyay delta 1 ayaa u qortay maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaysa isla intan ay ku soo baxaysa determinantiga hadaa raadisid isla intan ay ku soo baxaysa wadadana waa mari karaa oo wada kale ku duwan marka intan ayaa ku soo koobinaa casharkeena socod wanaagsan waxaan isku daynaa xisaabaha basic ah ilaa calculus dhan inaan ku soo koobno halkan salaam